xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa guulo ka sooyay doorashada goboladaasi arintaasi oo la sheegay inay dhurbaaxo ku tahay madaxweynaha hadda talada ah ee Mareykanka Donald Trump. Ana Brashano oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhawaaqay inuu ku guuleystay ama inuu noqdo barsaabka gobolka Virginia kadib markii uu loolan xoogan u galay gobolkaasi. Dhanka kale xisbiga dimuqraadiga ayaa markii uu horeysay muddo 20 sano ah helay aqlabiyadda golaha deegaanka gobolka Virginia. natiijadan ayaa la sheegay in ay astaan u yihiin waxa dhici kara marka la gaaro doorashada sanadka dambe ee ka dhici doonta dalka Mareykanka. Xisbiga Jamhuuriga mar kale ku guuldareystay barsaabka gobolka Minnesota halkaas oo ay weligood uu ku xooganaa xisbiyada Jamhuuriga iyo Donald Trump uu ka tirsan yahay. La wadaag media goor kasta iyo goor walba ha moogaan tala wadaag media.